war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay duqeyn cusub oo xalay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalkan ayaa waxa ay ku shaacisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya. Waxaa la sheegay in weerarka dhinaca cirka ah ay iska kaashadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee taliska loo soo gaabiyo magacooda Africom. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in weerarkaasi oo dhacay 5tii bishan lagu dilay ilaa iyo 8 ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab sida hadalka ay u dhigeen. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa duqeyn xalay ay ka sameeyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dilay 8 horjoogo oo ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Dhinaca kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab ee ku aadan duqeyntaasi. Mareykanka ayaa sanadkan 2020 kordhiyay howlgallada uu ka fulinayo Soomaaliya, gaar ahaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee uu la beegsanayo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyo Daesh.